walaalkay markuu garaaca walaalkay hadalkay walaalkay ku tiri aniga ma aanan ka filanaynin aniga aad iyo aad ayaan kaaga helay maxay ka waday walaalkana ma ogolaada arrintan ay asaga ma ogolaanin laakiin ninka dhulka leh ayaa wax badan faasiyay kadibna wuu yeelay asaga adiga intaanad iga daysatay intaanadna ii soo celisay gurigaanna waa degan tahay feelkiina waa kane noloshaada farxad oo keliya ayaa ka maqan farxaddaas haddaa heshid noloshoo dhan way kuu dhammaystiran tahay oo farxaddan ka hadlaya waaba taneebo farxaddan ka hadlaya gaxwada maaha yaa waa gabadhayda maanta si aan caadi ahayn ayaad usoo libisatay timahana waad soo xeratay caadi ma tiid way gabadhada ninkiisiya oo kartida ma ku dirtay maxaan iga gal doontay adiga marba haddaan walaashaa la guursanin walwal ayaa ku haya midaasna aniga ayaa kaa dhisaya waxba ha ka baqin baano kala bay bablo hal marnaan soo arkaa rabaano maxaad soo arkaysaa aniga wacay guriga ayayna noogu aha sidaan oo dhan ay qurux badnaata sababtan aniga uga xumahay waa maxay madu gabadhan waa qaraabadeena maalmo kooban ayayna nala joogaysaa anaga marka maalmahay nala joogto waa inaan soo dhaweynaa maalmo kooban oo keliya isaga ma joogaani asiga ma jooga maxaa ka wadaa macnahayga shaatiga ninkii lahaayaan ka wadaa bablu aan hooyo macaan ii ducee hooyo waa ducaysantahay qasab miyaan inuu gabadhan guursado xaalka noocaynaya maxay uu sheegay ismar hore ma waa fiican madu gabadha gudaha geli bablu baanu kulankeeda meel u timid qofka markuu ugu horeysa su-aasha la weydiiyey sidaan oo kale u xishoodaa wiilkayga cunada waan kuu diyaariyey gabdho idinkana soo baxa aan wax wada cunna hooyo macan marka hore martida sii cuntada aniga marti miihi raashin ma cunay ma liiri maanta markii aan arka naagtaad guurso rabtid waad dibirsamia baahi ma yaqaanaysa nolosheeda inta ka dhiman almiina aanaan kuu keenno caanaana ma rabi haddii aan ku dhaho amaad i xambaaraysaana ترتيب لوك ديك نفتح ما يوحى ترتيب هي waxaan dareemay qalad inaan galay markii aan xanaaqo kadib ayaan ogaaday qalad inaan galay waana sababta ka dambeysay hadda koor inaan isdilo hooyadayna aan ka xanaaqo aabaha hadalkiisa waa inaa yeeshaa ninkaana aad guursataa inaad sii shaqaysidna maba loo baahna maxaa yeele ninkan lacag fara badan ayuu haystaa gurigiisana shaqaale fara badan ayaa ka shaqeeya noloshaada inta ka dhimanne wuu ku dabari karaa teeda kale ogow isbuucan gudihiisa waan ku guurinayaa hadiyaddaana waa hadiyadda dhalashadaada aan ugu talagalay dhalasho wacan ninka aniga hooyada ila rabta wejigiisa ma fiirinin maxaa yeele xanaaq xun ayaa biihaay midaas ayaana sababta nafteeda inaan halis geliyo idinka gabadhiina baadiyad u soo dirteen laakiin dhibaatayna u haysaa annaga maxaa yeelay
khaldan inaad ula heshtimayn adiga ciyaalka haddii ay khalad galaan waalidkooda in loo sheego soo maaha waad ku saxantahay mar labaad aabba adiga marka hore nolosha filimaanta ka baxay nolosha runta laga hadlayaa yaraysataya adiga gabadha hala hadlin waa la hadlaa maya si khaldan in ula hadashid maahan haddii ay meeshaan ka tegi maya weyso sug anigaa xal keenaayo idhagaysa saaxiibkay gabadha ma habboona ninka ajnabi ah in ay waddada la warwareegto haddii kale dhibaato kale ayaa imaanayso dhibaatadaas hadday timaado oy hooyadeed ogaato adiga mushkilo ayaad galaysaa anaa fiiriya abo inaad fiiris waa lagu qasban yahay sababtoo ah gabartaada guriga maba ku jirto sheekada masharyar wax la jiro haddaan hooyasheeda qabsaa gorfaynayna waxbaa ka welwelna marwo gabadhaada guriga ma joogto ee tuulo meeshaas ayay aaday la soco maxaa ka hadlaysa adiga waa ku sheegu haya taleefon ayagoo ku hadlayaan ka dhegeysta aniga okay beejnaad ay jirtaa sax beejinaad kale iga dhe taleefon ayagoo ku hadlaya idii adogeeda maqlay waa kaa hubaan arrinkaas sidoo ku dhaqsiya badan waa inaad tigidib soo diyaarisaa dhaqso amarkaagaa jiro dhegeysta laakiin waxaan ku sheegaa fiiri adiga kusoo doonaayo waxaa soo raacaysaa taxi si adiga qayaanadooda u ogaato oo aa ugu soo kordhacdo intaas leehay samay bis okay waa mahadsan tahay waaba hurdo hayaa beella waaye shaqadiidaan sii qabsaa laakiin aniga maxaa iga gale halo yaarkayga xaalka waa xun yahay waxaa la rabaa duqda waa ogaati anuu inay meeshaas jirto waa ku tuuga intaysan imaanin ka hor soo buubiyaan ku dheh haddii kale dagaalka saddexaad ee adduunka dhacayo adeerka murug law taas eedo intaysan imaan anuu anaa guriga keenaayo waa ballan ka qaataas marxaba taye iga tag दिल ही जाने हम क्या जाने नहीं हमें पता ऐसी राहें प्यारी बाहें सोना ने सफर का मुझे पता चला हम तेरे तुम हो मेरे होंगे कभी ना ऐसी खुशी ऐसी हंसी मिलती रहे मुझे यहाँ गाड़ी से कुछ से sian adiga ku fogeeyo सफर है साथ अपनी ये डगर है ऐसे में तू फिर क्या सोचे तुझे मेरी कुछ खबर है जब से तुम मिले जाना 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 तुझको अपना मैंने माना 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 लाखों फूल खिले जावा 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 पर तुम जैसा यहाँ कोई कहाँ anaga buuqsane hay صديقي قياسة مالك صور نقصت صار بخرسي عديت برافو عليك تكسرني سالنت مرة يسوع واخبري ايش
سدو سدو قول لك سدو مرو هلو حبيبتي حبيبتي حتى تفضل صدري بس يوم ما ادري وحي سنة درتي أنا ما مرو وكبريا وكادي والكيد اللي درت وادي ها ملك هذه انت اللي فيها فيري شكلًا هذيك اللي هو اسمه قف ما جبت بشر أعوذ بالله جني ميعيد دريشت ما يكسبش soo istaago waan fikiri jiray laakiin maanta sidii horaan dareemi jiray si ka duwan ayaan dareemayaa hooyana maanta been ayaan u sheegay beentaas aan sheegana anan garab weyn ayuu igu siiyey waan faraxsanahay aniga aad iyo aad